بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kanaalkeena Som Universe. maanta waxaan ka hadlaynaa xikmadihii cajiibka ah ee laga qoray aqoonyahankii Albert Einstein. haddaba xikmadahaasi oo aan soo xulnay ayaa waxay kala yihiin: 1. bartanka waqtiga adag ayaa fursadaha laga helaa. noloshu waa sida baaskiil, si aadan u dhicin waa inaadan socodka joojin. nabad laguma hayn karo xoog, waxa kaliya ee lagu gaari karaa waa isfahan. intaadan ciyaarta bilaabin, baro xeerkeeda, waxaad noqon doontaa kan ugu ciyaarta fiican. u fiiri si qoto dheer koonka dabiiciga, kadib waxaad si fiican u fahmi doontaa wax walba. haddii shayga si fudud u sharxi kari weydo, macnaheedu waa inaadan si fiican u fahansanayn shaygaas. isha kaliya ee cilmiga laga helo waa khibradda. ha u jihaadin sidii aad u guulaysan lahayd, laakiin doorbid sidii aad qiimo u yeelan lahayd. tilmaamta saxda ahi ee indhergarad ma ahan aqoon, balse waa mala awaal. qofka aan weligiis qalad samayn, weligiis wax cusub iskuma dayin. kuma xalin karno dhibaatooyinka adeegsiga isla fikirkii aan ku abuurnay dhibaatada mid la mida. wax ka baro shalay, ku noolow maanta, birina rajay. waxa ugu muhiimsan waa inaadan joojin gelinta. mawduucan intaas ayuu ku egyahay. intaan mawduucan mid lamid ah ku kulmi doono, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.